الله أكبر. وين بريسنيد وقوداس وون كفصدي قوداس سدقيد بانا اور بيلهاي dareenka gabadha geeri iyo nolol midda heli saaran lahaa هي hadda geerideedii baanan hel hadda iyo markii hadda xanuun badan halkaan buu gabadh markii hore midda qof ku qabsaday ka bacdin wataalka tagtay رفشة كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك أدنى قضاونا يسان جانا قلافورا في شردان نقول عسبتين سبسكرايب لايك شير كومنت انت بوا حقيني ولا ليال ما انت وحاني دين سيدا دعدا حنون بدن دعدو مروقة ديدا حنبارسن دعدو آت وحنون بدن إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا ليال waddankeeni Soomaaliya waxaa ka dhacay gaar ahaan Cabudwaaq waxaa ka dhacay dil iyo kufsi oo la isugu daray gabar 17 jir ah ee haddana uur lah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gabadhaasoo nin uu u geystay inuu dilay ee haddana uu bireeyay dilkaaba kale ahbo midi inuu u qaatay qoorti uu ka gooyay وقرت كبري هالكاس وركو كبري نينكاسي حكم كيسي إيو ويحلو سمايل هابا نينكاس وحو مدنيا هاي مانيكي قباداس أسيلا سوقبتي إنا حكم إيو مرخاتي إيو آن لو سوغين هادانا إسنا مركز أسنا قوابتاسي حدق اللوغو أوفيو الكوالا ليال وحا إلهي أغبريينا إنو إلهي إهلكي إقرابدي ay ka geeriyootay ay ka baxday iyo saygeedaba sabir iyo iimaan Allah ka siiyo ayadana jannatul firdaws Allah ka waraabiyo sida waxaas ay u dhaceen waxa sida dilkaasi iyo kufsigaas u dhacayna waxa nooga warami doona sodageeda bal nala daawada daan shala galab yaa wax maxamed yaa waxa loo diray qoryo maamadii way weeyday gabadhii ilaa xalay oo dhan baa la sugayay xaafado oo dhan baa laga goobahayay waa la waayay wiilka gabadha qabay oo aan dhalay baa soo wacay gabadha waa la waayay waxaan baadi goobay maamadii hooyadeed ahayd baan wacay maamadii hooyadeed baan u tagay meeshaas ay igu dambeysay bay tiri oo halkaas ay igu wardambeysay meeshii ay raadkeeda uga soo laabatay baan tagnay markaan raadkeedaan qaaday gabadhii waxaan u tagay meyd ah oo la isticmaalay oo buumihii meel yaallo ayadii diraceeda iyo googorodeedana halka u saaran yihiin jeegadana uu ka bileeyay dhuunta uu ka bileeyay meel walba toorey uga yaalaan meed bayna ahayd saas wax u dhaceen wax Allah u naxariisto ciidamada booliska yimid oo soo qaaday aniguna ninka raadkiisa baan qaaday sida aad daawateen walaalayaal sodageeda warbixintaasi noogu soo gudbiyay ninkaasi wallahi wuxuu mudan yahay in isla markaaba la dilo waxaanu sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed gabar hooyo way ku dhashay way kula dhalatay waa dhali doontaa waana qabtaa ama waaba dhashayba marka inaad dad dumarka birmageedada inaad sidaas loo galo xaq ma aha wax dhaqan iyo diin xambaarsanna ma aha walaalayaal ninka dhibkaasi geystay ciidamada amniga galmudug gacanta ayay ku soo dhageen waa la haayaa wuxuuna marayaa cadaaladda ayuu marayaa in afka laga sheegana maroona ninkaas waa in goob fagaara ah la keena la isugu soo baxaa walow xataa sida diinta islaamka ay qabto nooca asi uu u dilo in loo dilaa xaq ah marka walaalayaal ninkii oo dhibkaas geystay ma aqaano sidoo ahaa iyo dadnimadiisi iyo damiirkiisiba ma aqaana kaas waxaan ku tilmaamaba ma aqaanabo marka ehelkii qaraabadii iyo saygeedii ay ka baxdayna sabir iyo iimaan Allah ka siiyo marka sabirkiisi bal nala daawadaasna walaalayaal waa kana ninkan aad u jeedaan waaye ninka gabadha kufsaday ee haddana dilay ninkan aad arkaysaan waaye marka ninkani wuxuu marayaa insha Allah cadaaladii uu marayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa gabadha sabir iimaan Allah siiyo ninkana cadaalad in la mariyo ayaan doonaynaa
دانها أمد الصوماليات sidaa sawirkaasi aad ku aragteen waa ninkaas ninka dhibka geystay ee gabadhaasi adduunka dhaafiyey hami waxay lahayd inay ubadkaasi dhasho ee jilbaha saarato farxad ay kula noolaato ubadkeedii iyo saygeedii waa ninka dhaafiyey ee u diray daarti aakhiro waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed waxaasoo kale ha laga foojignaado ha la iska dhaafo war gabar way ku dhashay way kula dhalatay waadna qabtaa waadna dhali doontaa ama waaba dhashayba war ma doonaysaa walaasha inaad dhibkaas la mariyo war ma doonaysaa eedada inaad dhibkaas la mariyo ma doonaysaa habaryarta inaad dhibkaas la mariyo waa maya qof jecel ma laha marka waxaan idin leeyahay walaalayaal ha la iska dhaafo gabdhaha Soomaaliyeed uma qalmaan sidaas hana laga leexdo ninkaasna waxaan leeyahay cadaalad ha la mariyo umada idaawanees baliis waxaan idin ka codsanayaa sheerta ha lagu qabto si ay u gaarto ragga aan waxaasito yani si ay u gaarto dadweynaha Soomaaliyeed arintaasna looga foojignaado ciidamada galmudug waxaan leeyahay guul iyo gobonimo waa mahadsantihiin ninkaasi maadaama gacanta aad ku soo dhigteen dhowr jeerna aad yani sameyseen arimahaas oo kale nina xamar wax ku soo dilaa galmudug waa lagu qabanaa tira laba jeer waa tii saddexaadna hadda tan waa cabud waa dhaxdeed ay ka dhacdo qabateen waanu ku mahadsantihiin daawasho aad daawanaysaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh